shacabkan careysan ayaa isugu soo baxay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxay dhigeen banaanbax xoogan waxayna ku dhawaaqayeen ereyo ka dhana madaxweynaha xilkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud xitaa jidadka ayuu ka xirtay hoon ayaysan nafta kaga jireen iyo qaylo ila arag maanta waxa ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho dadkii aad barakicisay dhibaatada dalka ku haysa waxaan isla eegaynaa xogaha caawa ka soo baxaya caasimadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud laftirkiisa cabsi ayaa soo wajahday baa la yiri waxa uu aad uga baqayaa in shacabkan caradooda buux dhaafto isla markaana ay u soo daataan darbiyada madaxtooyada ugu dambeynna ay ku dhacdo wixii ka dhacay dalal badan oo ay ku jirto markaas Naybaal waxaan isla eegaynaa wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi oo aflagaado ula bareeray madaxdii hore ee wadanka dibadbaxyada maanta dhacay hooyooyin ayaa la garaacay waliba si aan wanaagsanayn ayaa loola dhaqmay xogahaas oo dhan ayaa soo koobaya like sar muuqaalka saaxiibadan u soo share gareey waa mahadsantahay waxaan ku bilaabayaa isgoyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho shacab careysan oo uu jidadka beebayaal uga xirtay madaxweynaha mudxuleedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya ayaa tubnaa maanta oo dhan iyagu oo sugayay inta uu ka soo laabanaya xerada Turkisom oo madaxweynuhu tagay waxaase ugu dambeyn ay sababtay in dadkaasi ay caroodaan isugu yimaadaan halkaas markii madaxweynaha uu marayayna hoon ay ku saaraan ama ay markaasi hoon raaxada uga qaadaan oo ay zaxmad badan halkaasi ku fureen dhinaca kale banaanbax ayaa ka dhacay xaafadda lagu magacaabo Fagax oo qaybisa degmooyinka Hiliwaa Kaaraan iyo Yaaqshid ee gobolka Banaadir waxaana ay ku dhawaaqayeen dal xaraasho dooni meeyno doorasho boob dooni meeyno iyo ereyo kale waxay soo qaateen boorar ay ku xardhan yihiin sawirrada madaxweynaha iyo ereyadaas iyaga oo markaasi ka cabanaya boobka doorashada iyo aan iraahday boobka dhulalka iyo doorashada Soomaaliya oo wali aan dhicin waxay kale ku eedeynayeen madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inuu diidan yahay qabashada doorasho dadweyne laakiin ciidamada ammaanka ayaa jirdil u geystay hooyooyin banaanbaxaasi qayb ka ahaa waxayna ku garaaceen baa la yiri qoryaha noocyadooda culus sidoo kale Xasan Sheikh waana barakiciyay meeytadeennii ayuu qubuuraha kala soo baxay kuweennii Yurub u qaxay waa uga daba tagay guryaheennina cagaf ayuu geliyay mana doonayno ayay tiri mid ka mid ah dumarka banaanbaxa ka dhigayay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya laakiin ciidamada ammaanka ayaa jirdil iyo xarig isugu daray dadkaas muddo kororsiga iyo barakicinta joogtada ah ee Xasan Sheikh uu ku hayo Muqdisho diidanaa muuqaalada ayaa muujinaya saraakiil xoog ku saarayo gaariga markaasi aan xabadu karin bullet proof iyo gaari kale oo nooca qabalka loo yaqaan ama cabdibilaha loo yaqaan oo ay ku gurayeen dadka iyaga oo u sii dhacdhicinaya xabsiyada madaxweynuhu Turkisom waa ka soo laabtay ugu dambeyn dadkiina waa laga fasaxay ceelgaabta oo guryahooda ayay ku laabteen laakiin Muqdisho waxa ka taagan xaalad walaaceeda leh shacabku way cabanayaan waxa la isweydiinayaa goormay ay istaagaysaa cagafta oo shanqadheedu wali laga maqlayo gudaha caasimadda dowladda Umajraa way Xasan Sheikh Maxamuud ayaa dhowr jeer oo hore lagu eedeeyay boobka hantida dadweynaha iyo sidoo kale inay xaraashayso xoolihii ummadda iyadoo oo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud lagu eedeeyay inuu yahay 70 jir xukun iyo xoolo mid uu dhaafayana aana jirin oo xaalufinaya qaramada midoobay ayaa taas ugu dambeyn ku abaal marisay inay ku dhawaaqdo inay jaranayso taageeradii dhaqaale ee ay siin jirtay madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay ku eedeysay xitaa madaxweynaha safaradii uu gali jiray ee dalka dibaddiisa ah marka laga reebo dalalka Afrika waxa uu tagi waayay dalalkii Carabta Mareykanka kuwii Yurub iyo dalal kale oo dhowr ah aragtaada nagu beeri waa mahadsantahay saaxiib muuqaalkan ila daawo dadkii aad barakicisay dhibaatada dalka ku haysa doorasho Xasan Sheikh wata ma rabno doorasho oo raali laga yahay rabnaa Xasan Sheikh sida u jeedaan boorkay ku qoran tahay waqtigaagu wuu dhamaaday nadaaf waqtigaagu wuu dhamaaday nadaaf maxaa yeelay adiga waxaad sheeganaysaa inaad tahay professorna waxa waa nin aqoon-yahana aqoontuna waxay ku baraysaa in adigu ay markaa
wixii saxa iyo wixii beena ay ku sheegto afartaadii sano way dhamaatay nadaaf dadkii aad barakicisay dhibaatada dalka ku haysaa waxaad sheegataa inaad tahay siyaasi aan dalka ka bixin annagana waxaan nahay muwaadiniin aan muqdisho ka dhicin muqdisho kamaana bixin waa ku dhashay mana dhicin midda hadda ka dhacda maanta dadkii oo dhan aa dhibaataysan guryihii laga soo bixi laayahay marka xisbi ama koox gaar ah dadkan uma afduumaan doono waxaan kaa doonaynaa xakunka inaad dhigto shalay adiga nidaam baad ku timiday nidaamkii aad ku wareejinaysaa sidii adiga lagu doorto kale waa in madax kale loo doortaa gooska fagaxa isugu soo baxnay dadkan waxay ka mudaaharaadayaan doorasho oo xur ah oo xalaal ah doorasho oo la sii qorsheeyay oo la og yahay qaabka ay ku timaaday oo xawahay oo la og yahay qaabka ay ku socoto doorashadii oo koonfur galbeed iyo doorashadii oo xawahay liiwaan shuluq ma doonayno doorasho waxaan rabnaa xur iyo xalaal ah doorasho oo nin wata ma rabno doorasho xasan sheekh wata ma rabno doorasho oo raalli laga yahay rabnaa doorasho been abuura ma rabno 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 doorasho waxaan rabnaa oo la wada dhan yahay doorasho Soomaali raalli ku tahay Soomaalida